kulanti aboon daawadayaal meel kastoo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan idil ahaantiina waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida channelka daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo dhaqaalaha ka jaranaya saraakiisha ka soo horjeeda ee taabacsan ra'iisul wasaare Roble midowga Yurub oo war ka soo saartay khilaafka u dhaxeeya Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble maamul goboleedkii ugu horeeyay oo cadeeyay mowqifkiisa shirka uu Farmaajo ku baaqay ee qorshuhu ahaa in maanta uu qabsamo intaas waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobada aad kaga bogan doontaan tabinteena tooska horar haddii aad nagu cusubtiin waxaynu idinka codsanaynaa inaad subscribe-ka aad noo saartaan barta YouTube-ka channelkeena aad naga daawanaysaan si aad uga mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada haddii jeer sida joogtadana halkan aynu ugu soo baahino noqon daawadaha ugu horeeya ee hela xogaha wararkeena daawade qodob walba oo warkan kamid ah aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaan hagaagaynu ku bilowno madaxweyne Farmaajo ayaa dhaqaalaha ka jaranaya saraakiisha taabacsan ra'iisul wasaare Roble ee ka soo horjeeda xaaladda markan taagan ee dhinaca siyaasadda warar soo baxay ayaa sheegaya isla markaana inoo xaqiijin ila muhiim ah oo ku sugan qasriga madaxtooyada Villa Soomaaliya madaxweynaha iyo saaxiibadiisa ayaa qorsheynaya in gabi ahaanba dhaqaalaha ay ka jirtaan saraakiisha ciidamada taabacsan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee ka biididsan hanaanka loo wajahayo siyaasadda Soomaaliya kuwaas oo qaarkood diiday inay la saftaan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ilaha muhiimka ayaa inoo sheegay isla markaana xaqiijin saraakiisha dhaqaalaha laga jirto uu ka mid yahay Bashiir Goobe uu dhawaan ra'iisul wasaare Roble u magacaabay agaasimaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka NISA si ku meel gaar ah wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in sidoo kale ay jiraan saraakiil kale oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya isla markaana ka mid ah saraakiisha booliiska iyo militariga iyo nabad sugidda in iyana sidoo kale ay saameyn doonto go'aankan dhaqaalaha looga jarayo saraakiisha la safan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble xogta ayaa cadeynaysa in arintan ay shir laba geesood ah ay ka yeesheen madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibadiisa gaar ahaan kuwa uu ka tala qaato marka uu gaarayo go'aanada adag ayaa waxaa la sheegay in ugu dambeyn la isku afgartay in saraakiishaasi loogu goodiyo dhaqaalaha laga jaranayo haddii ay ka soo laabtaan ama la garab noqdaan madaxweyne Farmaajo waxaa suurtagal ah in dhaqaalahooda dib loogu fasaxo awoodda dhaqaale ayaa markan lagu loolamayaa sida muuqato waxaase ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo dhinac kale uu ku dadaalayaa sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa ilaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble dhawaan qoraal uu soo saaray waxa uu ku faray hay'adaha maaliyadeed ee dalka in aysan bixin karin dhaqaale isaga uusan ka warqabin waxay soo dedejisay tallaabadaasi in gabi ahaanba la dhimo awoodda ra'iisul wasaare Roble oo dadka falanqeeya siyaasadda ay ku micneeyeen mid madaxweyne Farmaajo uga gaashaamanayo in lagala wareego awoodda guud ee dhinaca maamulka dhaqaalaha Soomaaliya midowga Yurubna waxay baaq degdeg ah ka soo saareen khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble oo cirkaas ku sii shareeraya khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa gaaray meeshii ugu xumeed waxaana khilaafkan laga cabsi qabaa in dalka uu ka abuuro qalalaase siyaasadeed iyo mid amni waxaa sii kordhaya wadamada caalamka ee walaaca ka muujinaya khilaafkan u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble kuwaas oo labada dhinac ugu baaqaya in khilaafkooda wada hadal ay ku dhameeyaan qoraal ka soo baxay midowga Yurub ayaa loogu baaqay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble in wada hadal la yeeshaan soona afjaraan khilaafkan sii xoogeysanaya u dhaxeeya labada mas'uul midowga Yurub oo qoraal ka soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay in loo baahan yahay in geedi socodka doorashada oo aan la hakinin lagu wada dhameeyo si nabadgelyo ah khilaafka ka dhex jira madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble iyadoo la raacayo jadwalka hore lagu heshiiyay 27 bishii May ee sanadkan aynu ku guda jirno waxay tani furo u tahay badqabka dadka Soomaaliyeed dhammaan daneeyaasha arrimaha Soomaaliya waa in ay xakameeyaan xasiloonida guud ee Soomaaliya iyo gobolka ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay xafiiska midowga Yurub ee ku leeyihiin Soomaaliya
waxaa hore baaqkan la mid ah usoo saaray qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka ee jooga Soomaaliya iyadoo dowladda Mareykanka ay sidoo kale ugu baaqday madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble in khilaafkooda wada hadal ay yeeshaan isla markaana si degdeg ah ay ku xaliyaan. baaqyada kala duwan ee dhinacyada siyaasadda ee ka taageera Soomaaliya ee dhinaca maaliyadda ay soo saarayaan ayaa ku soo aadaysa xilli aysan u muuqan labada xafiis hoggaanadooda inay u dhaganuglaanayaan baaqyada kala duwan ee ka soo baxaya saaxiibada Soomaaliya iyo dadka u dhunduleela arrimaha siyaasadda Soomaaliya. lama oga halka uu xalka ku dambeyn doono marka la eego loolankan ka dhex jira madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble isla markaana salka ku haya loolankooda arrimo la xiriira dhinaca awoodda. maamul goboleedkii ugu horeeyay waxa uu cadeeyay mowqifkiisa shirka Farmaajo uu ku baaqay maanta qorshe uu ahaa inuu qabsoomo. maamul goboleedka Puntland ayaa waxa uu noqday maamulkii ugu horeeyay si rasmi ah u qaadaca shirka golaha amniga qaranka ah uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo in maanta uu ka furmo magaalada Muqdisho balse baaqday. shirkan sida la sheegay uu taliyay hore NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu ku soo bandhigayo xogta kiiska Ikraan Tahliil Faarax ayaa u baaqday kadib markii Fahad Yaasiin shalay laga celiyay Jabuuti oo uu Muqdisho imaan waayay kadibna dib ugu laabtay magaalada Istanbul. amniga qaranka ayaa waxaa ku mideysan madaxweyne Farmaajo, ra'iisul wasaare Roble, madaxda maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada amniga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa sheegay in Puntland aysan ka qayb galaynin shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo. wasiir Dhabancad ayaa waxa uu meesha ka saaray doorka madaxweyne Farmaajo ee shirkan masiiriga ah ee loo qabanayo dalka isagoona ku sifeeyay inuu yahay madaxweyne hore oo sharciyadiisu ay dhamaatay haddana uusan awood u lahayn in shir uu iclaamiyo. maamul goboleedyada kale ayaan weli cadeynin mowqifkooda hase yeeshee waxaa la filayaa in sidoo kale Jubbaland ay qaadacdo shirkan halka Hirshabelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo xulafo la madaxweyne Farmaajona ay aqbali doonaan sida qorshuhu yahay. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa hore u diiday in kiiska Ikraan Tahliil uu noqdo mid looga doodo shirarka iyo guddiyo ay yeeshaan waxa uuna ku amray maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay baarto taas oo ah sida ay doonayaan qoyska Ikraan Tahliil. saaxiibada qiimaha badan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida ku maasantiin daawashada warkan midkiisa xiga nabadeeno.